Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa inaan isweydiino dhowr su'aalood oo la xiriira luqadaha. Marka aan Soomaaliya joogno, luqadda koowaad waa af Soomaali. Waxaynu dadka ku bartaan qaab practice ahaan ah oo maalin walba ay isticmaalaan. Balse marka laga soo tago luqadda af Soomaaliga, dhammaanteena waan isku raacsannahay inay muhiim tahay barashada luqadaha kale oo ay ugu horeyso Carabiga iyo Ingiriishka. Carabiga, haddii aan tusaale usoo qaadano, qofka Soomaaliga ah waxa uu bartaa laga soo bilaabo markii la geeyo dugsi Quraanka, halkaasi oo uu ku barto habka loo qoro iyo loo akhriyo luqadda Carabiga. Taasi waa faa'iido aan dheernahay dowlado fara badan oo Muslim ah oo xataa dadkoodii waaweyn aysan akhrin karin amaba aysan qori karin magacooda oo af Carabi ah. Balse mushkiladdu waxay ka jirtaa in qofka Soomaaliga ay yaraantiisii bartay qoraalka iyo akhrinta afka Carabiga, kadibna iskuulka inta badan maadooyinka ay ku baxaan laga yaabo in ay ku baxaan maadooyinka af Carabiga sida taariikhda iyo juqraafiga iyo maadooyin la mid ah haddii ay jiraan weli, ay ku baxaan afka Carabiga. Sidaasi ay tahayna ay aad u adag tahay inuu qofka ku hadlo af Carabiga. Sidaa waxaa la mid ah luqadda Ingiriishka, oo laga yaabo in fasallada hoose laga soo bilaabo barashadeeda ilaa heer jaamacadeed uu baranayo qofka asagoo aanan ku hadli karin. Isla mid la mid ah waxaad arkaysaa arday barata cilmiga sharciga iyo luqadda Carabiga, gaar ahaan sida naxwaha iyo sarfaha, balse aanan ku hadli karin afkii Carabiga ayagoo yaqaana wax walba oo la xiriira luqadda Carabiga. Waxa aan inta badan xoogga saarno ayaa waxa ay tahay reading-ka, wax akhriska, iyo sidoo kale listening-ka oo ah dhegeysiga. Waxaa laga yaabaa inaad machadkii tagto oo aad maalin walba dhegeysanayso macallinka oo sharxaya luqadda Englishka ama Carabiga waxay ahaataba. Sidoo kale marar qaar ayaa laga yaabaa inaad akhrido casharrada qaar si aad imtixaanka ugu gasho. Balse labadaa shay ee aad samaynayso, dhegeysiga iyo sidoo kale akhrintuba, waxay kuu soo kordhinayaan kelimado cusub iyo qaab cusub oo aad luqadda u isticmaali karto. Balse mushkiladdu waxa ay ka jirtaa haddii aadan isticmaalin luqaddii, taa oo ah in aadan weligaa ku hadlin ama aadan waxba ku qorin, amaba ay yaraato waqtiga aad gelinayso ku hadalkeeda iyo qoraalkeeda marka loo barbar dhigo waqtiga aad dhegeysanayso iyo waqtiga aad akhrinayso. Luqadaha waxaa lagu tiriyaa xirfadaha bini'aadamka ee caadiga ah, sababtoo ah xirfadaha waxay ku dhisan yihiin practice amaba ku celcelin iyo samayn badan.